بسم الله الرحمن الرحيم هرا لو يري نكي تكتديسا يقان ayaa timaadadiisa ka arimiya qofkii taariikhdiisa hore garanaya ayaa taariikhdiisa dambe tabu hela waxaynu wax ka baranaynaa taariikhdaas waa taariikh uusan qabiil iyo qof gaar lahayn waa taariikh ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa magaalada Dhuudo waa magaalo istiraatiiji ah waa magaalo biyo leh waa magaalo difaac u ahayd ciidankii Boqor Cismaan naxariistii janna Allah siiye waxa ku yaala qasri taariikheed oo micmaari ah oo waxa istiraatiijiyad difaac leh waxa saddex biyaano walba ama dabaq walba uu leeyahay daloolo magacayga Ismaan Saciid Xirsi baa la yiraahdaa waxaan ku noolahay degmada Dhuudo tuulada Dhuudo dadkii baan aan qarnigii hore wax ka soo gaaray facayguna waa 84 qarniyada ragii soo gaaray baan daartan Dhuudo iyo waxaan nooga sheekaysaa istiraatiijiyadeedii iyo taariikhdii uu sayidku bixiyay ee ahayd boqolka dhuudood boqol u waayay maxay ahayd taariikhdaas waxay ahayd sayid iyo boqor baa ku diriri jiray ninna taleex uu ka soo duuli jiray ninna Dhuudo fadhiyay sayidku waa ku jabay saddex hol baa kaga jabay oo cajiiba saddex hol oo cajiiba baa kaga jabay daarta markii ay soo weerareen xoolaha ku jabin lama arag daldalooladan maxay ahaayeen daldaloolada mid waxa la yiraahdaa salaangooyi midna waxa la yiraahdaa shafgooyi midna waxa la yiraahdaa xudungooyi noo kala sharax idin kala sharaxayo mid waa karu sareeya salaangooyi la yiraahdaa kan xiga waxa la yiraahdaa shafgooyi kan xiga waxa la yiraahdaa xudungooyi kan xiga waxa la yiraahdaa bajagooyi salaangooyi waa halka sujuuda la dhigo way shafgooyi waa halkeena xudungooyi waa halka calooshu ku jidho majagooyi waa halka hoos bawdiyaha sidaasay ahaan jireen ma sha Allah halkaana sayid waa ka khoofay waana uu ka tagi daarta maxaa hadda loo xafidi waayay adeer oo loo xadayactiri waayay loo ilaalin waayay xafiska hadda loogu maqan yahay saddex biyaana yahay saddexdii biyaana hadda la dhamaystiray wala dayacay in kala dhamaystiray ma sha Allah guulaysta waa taariikh Soomaaliyeed in la xafido oo la ilaaliyo oo la dhowrana aad u mudan hadda gudiyada gashaan din maaragta geedkii lagu dhisay intuu xidid saaray oo ku baxay dhagixii lagu dhisay waa qoyaya raarkii saas u saaray waa qoryo mid waliba dib baa dusha ku soo qaadi jiray qoryaha intee la leegi waxaan la sheegi karaa cajiib marka noocaas ay ahayd halkaan waa jaranjaradii dabaqa saddexaad waxa ay ku dhisan tahay maaha shub waa dhirteennii meygaaga ahayd iyo dhoobadii dhulka waxaan ka soo degayaa hadda dabaqa saddexaad bismillaahi raxmaani raxiim waa laba qarni ka hor qasrigii dhisnaa meesha ay ilbaxnimadu sii kori lahayd oo aynu hadda dabaqya dhisan lahayn waxaynu maanta dhisanaynaa cashaan iyo sandaqado dabaqyadii waxay noqdeen taariikh keliya aan weliba la ilaalinayn waxaan ka soo degayaa hadda dabaqii labaad bismillaahi raxmaani raxiim waxaan soo degay hadda dabaqii hoose Dhuudo waxaa ku yaala qasri taariikheed ama dhismo runtii ay ka muuqato camirid iyo ilbaxnimo qadiima u baahan in la dhowro waa goob haddii la ilaaliyo oo la dhowro sida UNESCO ay u ilaaliso aan rajaynayna haddii bilicdeeda iyo wanaageeda la ilaaliyo goobta ay ku taal iyo quruxda ay leedahay balliyada iyo biyaha jiifa waa goob dalxiis bay noqon kartaa museumna waa ay noqon kartaa